إن كان تجني مid ka mid ah dalalka Afrika ugu quruxda badan ee la booqdo. Waa Rwanda oo sanadihii dhawaan noqotay mid ka mid ah wadamada ugu quruxda nabadda iyo kobac dhaqaaleedka fiican qaaradda Afrika. Waxa uu wadankani ku yaal dooxada Rift Valley. Docda bari ayuu Tansaaniya xuduud kala leeyahay, halka uu jihada galbeed xad kala wadaago Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Rwanda waa dal ka mid ah kuwa ka soo kabtay mid ka mid ah dagaaladii sokeeye ee ugu dhimashada badnaa dunida, waxaana uu taas ku kasbaday in ixtiraam iyo qadarin dunidu ku siiso sida ay u maareeyeen colaadooda. Tirada dadka wadanka haatan waxaa lagu qiyaasaa 13 milyan oo qof. Caasimadda dalkuna waa Kigali. Falowda haddaad bogan ku cusub tahay, muuqeenana sii faafi haddii uu ku qanciyo, kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Rwanda kaga warinayno. Rwanda waxay ahayd dalkii ugu horeeyay ee mamnuucay adeegsiga bacaha, iyadoo goortaas laga duulayay baaq ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ahaa in bacaha iyo guud ahaan agabyada kale ee balastiga ah ka qayb qaataan wasakhowga hawada iyo caafimaad xumada deegaanka. ayaa 2000 dalyarahan Rwanda waxa uu noqday kii ugu horeeyay Afrika iyo kan labaad ee adduunka marka laga yimaado Bangladesh ee mamnuuca adeegsiga bacaha. Midaasi waxa ay sababtay haatan in caasimadda wadanka ee Kigali loogu yeero magaalada ugu nadaafadda badan qaaradda Afrika. Cidii bac lagu arkona waxaa dalkan lagu xukumaa ciqaab ay u yartahay 6 bilood oo xariga. Rwanda waa mid ka mid ah dalalka tirada dadkiisu ka badan tahay xaddiga baaxaduleediisa. Sidaan horay u niri, Rwanda waa dalyare sidoo kale buuraley ah, kaas oo lagu tiriyo dalalka dadku buux dhaafiyay xaddiduleedkiisa. Baaxadda dhulka wadankan waxaa lagu sheegaa 26,238 kiiloomitir oo laba jibaaran, halka tirada dadkuna haatan kor u dhaaftay 13 milyan oo qof. sidaa darteed 600 ee dadka dalkan ahba waxaa ku soo aadaya wax ka yar 1 kiiloomitir. Rwanda waa dalka koowaad ee adduunka ee haweenku baarlamaanka ku leeyihiin xubnaha ugu badan. oo dalyarahani waxa uu bulshooyinka galbeedka ixtiraam kaga kasbaday dhinaca ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka, gaar ahaan baarlamaanka oo dumarka dalkani ku leeyihiin 64%. 106 xubnood ayaa baarlamaanka dalku ka kooban yahay, halka 60 ka mid ahi ay dumar yihiin, taa oo wadankan ka dhigtay kan koowaad ee haweenku baarlamaanka ku leeyihiin xubnaha ugu badan. Waxa ku soo xiga dalalka Bolivia iyo Cuba oo labadooda baarlamaan haweenku midkiiba ku leeyihiin in ka badan 50%. Kigali, caasimadda Rwanda, waa tan ugu nadaafadda wanaagsan guud ahaan Afrika. Rwanda sidaan horay u niri waa mid ka mid ah dalalka ugu bilicda wanaagsan Afrika iyo mid ka mid ah kuwa ugu ammaanka fiican. Dhinaca nadaafadda marka laga hadlayona, mas'uuliyad culus ayay iska saartay dawladda dalkan oo madaxweyne ilaa shacab waxaa sabtida ugu dambaysa bil walba ay ka wada qayb galaan olole nadaafadeed oo lagu magacaabo Umugunda, taasoo caasimadda wadanka ka dhigtay midda ugu nadaafadda wanaagsan. Arrinta ka qaybgalka olole nadaafadeedka Umugunda ma aha iska wax u qabso waa arrin sharci ah oo ay khasab tahay in muwaadin kasta ka qayb galo. Paul Kagame, madaxweynaha Rwanda, waa mid ka mid ah hogaamiyeyaasha loogu jecel yahay qaaradda Afrika. Sanadkii 2000 ayuu talada dalkiisa la wareegay Kagame, waxaana uu muddo 22 sano ah oo uu Rwanda xukumayo ka dhigay mid kasbatay ixtiraamka aynu ka warranay. Sidoo kale, Paul waa mid midowga qadiyadaha Afrikaanka iyo danaha qaaradda ku adag. Aad ayuu ugu suntan yahay waxa loo yaqaano Pan-Africanism-ka, waxaana uu caan ku yahay soo afjaridda dagaalkii sokeeye ee dalkiisa iyo sidii uu nabadda u dhexdhigay qoomiyadihii isxasuuqay ee Hutuga iyo Tutsiga. Docda kale waxa uu madaxda Afrikaanka kula taliyaa inaysan u gacan hoorsan qadiyadaha bulshooyinkoodana uga tanaasulin hogaamiyeyaasha galbeedka ee ay Afrika iyadu isku tashato. Rwanda waa dalka labaad ee ugu fiican qaaradda Afrika marka laga hadlayo ku ganacsiga. qiimayn uu sameeyay 2019 banka adduunku ayaa lagu sheegay in Rwanda ay tahay dalka labaad ee Afrika ugu fiican marka laga hadlayo ku ganacsiga iyo dhaqaale samaynta. Dal jasiiradeedka yar ee Mauritius lagu magacaabo ayaa kaalinta koowaad ku jira
halka ay sidoo kale Rwanda kaalinta 7aad ka gashay dalalka ku wanaagsan in lagu ganacsado adduunka oo dhan. Siyaasadda maalgashiga ee Rwanda ayaa ah mid si weyn loo ammaanay, halka ganacsiga iyo maalgashiga shisheeyahana dalkani albaabada u furay. Isla siyaasaddaasi maalgashiguna waxa ay door weyn ka qaadatay inuu kobco dakhliga gudaha ee waddanku. Sidaas darteed, haddaad doonayso inaad ganacsi ku samayso qaaradda Afrika, Rwanda waxa ay liiskaaga ka gelaysaa halka ugu sarreysa. 7. Rwanda waa mid ka mid ah 10 dal ee ugu ammaanka fiican Afrika. kadib xasuuqii dagaalka sokeeye sababay ee dalkaasi ka dhacay intii u dhaxaysay 1990 ilaa 1994, Rwanda waxa ay dunida tustay waji ka gedisan kaas colaadda iyo xasuuqa ku suntan, waxaana ay safka hore haddaysanba iyadu ugu horeyn ka gashay dalalka Afrika ugu nabadda fiican. 8. halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha Rwanda. maadaama dalkani yahay mid aan bad lahayn, kheyraadkiisu waxa uu inta badan ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha, waxaana la sheegaa in 42 dakhliga gudaha dalkani ka yimaado tacabka beeraha. wax soo saar kooban oo dhinaca shidaalka iyo dalxiiska ah oo sanadihii dhowaa dalkani dhaqaale ka sameeyay ayaa ka mid ah waxyaabaha kale ee iyaguna kaba dakhliga waddanka. mid kale oo ay tahay inaad ogaato ayaa ah Rwanda waa mid ka mid ah dalalka muuq ahaan dadkoodu ugu quruxda badan yahay qaaradda Afrika. oo hablaha waddanku safka hore ayay uga jiraan kuwa qaaradda ugu qurxoon, ragguna sidoo kale. dabcan haddaad guurdoon tahay, liiska waad ku darsan kartaa Rwandiyaanka.